بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا الكيمبا داوديال meel kastoo adduunida ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii arrimaha bulshada oo toddobaadkiiba 5 habeen oo isku xigxiga aad si toos uga daawataan New Africa TV Soomaali barnaamijkan oo sida ka muuqata magaciisaba aynu ku falanqeyno umuuro quseeya arrimaha bulshada isla markaana aynu ku wacyigelino ayaa toddobaad walba waxaynu ku soo qaadanaa mowduuc gaar ah oo aynu isleenahay markaasi bulshada xilligan waa ay u baahan yihiin in wax badan looga sheego mowduucaas iyadoo hadba aynu ku casuubno barnaamijka oo ay nagala qayb galaan cidda aynu u aragno in mowduucaas ay kuf u tahay ama ay munaasib ku tahay in bulshada ay kala hadasho caawa waxaa barnaamijka igala qayb geli doona inta aan mowduuca ka hadli doono idiin sheegin oo stuudiga ila fadhiya mid ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed dhanka kalena ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed waa ustaad Cabdiraxiim Faarax Naale oo ka mid ah dadkii wax ku bartay Suudaan kala hore dalkiina ku laabtay mar kale Suudaan dib ugu soo laabtay ku soo dhaw Cabdiraxiim marka hore stuudiga New Africa TV wadhawahay kaamil sida barnaamijka ay igu soo dhaweyseen aadaan idinkaga mahadcelinaa bidaad kanaalka ama TV-ga magaciisa New Africa ee ka shaqeeya dalka Suudaan si fiican khidmada ay u haysan shacabkana waa khidmad aad u muhiim oo loo baahan yahay anagoo yani ka faa'iideysanayna fursadan caawa qaaliga ah inaan u soo gudbiyo yani aaraadeeda iyo afkaarteeda ku aadan mowduucaas hadda aan weli aan shaacinin oo kolley soo gudbin doonto ila kala qayb qaato horta aadaan idinkaga mahadcelinaa bidaad daawadayaasha ayagana daawan doono oo aan daawanaya xaliyan ayagana aad baan ugu mahadcelinaa watahay aad u mahadsantahay dabcan Cabdiraxiim barnaamijka waxa kugu soo dooranay waxa weeyaan in sida isleeyahay nin dhalinyaro tahay oo wax badan ka warqaba dhalinyarada qodobka aynu ka hadli doono marka hore bulshada u soo gudbiyay daawadayaal waxaynu falanqeynaynaa caawa qodob ku saabsan waa sidee xaalka ka hor guurka inta aan la guursan ka hor maraaxiisha uu soo maro imika sida bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada guurdoonka ah ay ula tacaamulaan marxaladaasi iyo waxyaabo fara badan oo ku saabsan mowduucaas aynu ka hadli doonaa dabcan Cabdiraxiim saa hore kugu sheegay qodobkan waxa ku soo xushay waxa isleeyahay dhalinyaradina xog badan ka haysa way aragnimo iyo aragti dheeri ahna oo kugu tuhmaya qodobkan asiga ah maxaa isleedahay bulshada si aynu ugu wargelino waa ay sababtay in caawa lagu soo beego in qodobkaas aynu ka hadalno cabdikaamil horta aad u mahadsan tahay qof waliba bulshada yani waxay soo jireen ahayd ilaa iyo quruno badan min abuna aadam xawa ay soo jirtay si fiican cilaaqada yani isheeg xiriirka ma qabla ziwaajka ah wuxuu yani gogol dhac u yahay يعني إن له هلا أسرة قيس مسلمة يعني سيأسي جرت استمرارية الله هلا نلاشها يعني سيأسي جرت أسي صعته سيف يعني لا واحد أكتر حديث سجري لهين جورو سجري لهين إنجاب سجري لهين ما سجري ومضى ما يسوي سؤال لهين سيف يعني أهمية ده أقول هذا هرتا يعني موضوع أنا أقدر أنا حيت هاي ما قبل الزواج وحدعة واحد بدن علاقوين بدن وفشل مي مشاكل بدن ودعاية درتيد أوجد ayaa barnaamijka waxa uu yani u falanqeynaynaa caawa inaan uga faa'iideyno dadka ummadda Soomaaliyeed bidaad dhalinyarada yani u hanqaltaagaysa hamigooda u yahay in yani ay guur ama ay sameeyaan qoys qoyskaas oo yani ay ku habeyn doonaan yani qoys islaama ay ku dhisi doonaan waxaan u qaybin doonaa marka mowduuca hadda u gudo galno dhowr marxaladood horta uu maraa marxaladda koobaad oo ah marxaladda la yiraahdo marxaladda al-ijaab yani biluqa al-arabiya markii loo fiiriyo si fiican kahelitaanka gabadha ama wiilka marka uu yani go'aansado ama go'aan uu ku gaaro in yani mustaqbal uu samaysto ama takwiin usra wax la yiraahdo uu samaysto marxaladaas oo u gudbo waxa yani uu ku soo degdegaa ama qofka ikhtiyaarkiisa ah oo noloshiisa yani shariikad xayaadkiisa uu rabo qofka nolosha inuu la qaybsado la wadaago uu rabo waxyaabaha ugu horeeyo yani niyadiisa ku soo degdegaa marka horta waa inuu jira wax la yiraahdo marxala uu soo maro marxala ijaab wax la si fiican yani kahilid
كهيلد مركا يعني قف كستو أما نا كستو أما إن لقما يعني إنا كيش ده حاليا أما مواصفات خاصة يعني إنا أديه هو جرته يعني ضاق يعني ولا كلا ضاق دوية هاي ولا كلا دوية قفل يبقى وحو أركا سيو أركا marka wuxuu maraa qofka waxa la yiraahdo marxaladda la yiraahdo marxalad kahilida okay marka la joogo marxaladda kahilida Cabdiraxiin oo ka dhaxgalay qofka ma waxa uu ka helayaa hal qof oo uu isleeyahay muwasafaadkii adiga aad ku dooran lahayd qofka mustaqbalka la wadaagi lahayd ayuu kaamil yeelo oo ku dhameystiran mase waxa suuragal qofka markuu marxalad kahilitaanka joogo waxay u badan tahay sida isla xilliga zaman muraahaqa ama qofka uu qaangaarka yahay marxaladda kahilitaanka qof walba uu ka helayo qof walba oo muwasafaad kale inay horta waa point aad u muhiim ah marxaladda kahilitaanka ah dhowr qeybood ama dhowr siyaaboodba waa loo fasiri karaa horta sinal muraahaqa qofka marka uu yahay sinal muraahaqa yani waxa loo yiraahdaa qofka horta dooqa waa ka wareersan yahay dooqa yani meel waxa uu tiigsanaya iyo waxa yani ay tahay xiriirka si diibli ah si qoto dheer qofka uma ogo yani markuu sinal muraahaqa uu joogo qofka يعني كهيلدا wax badan way dhacdaa kahilida sinil muraahaqada waxa u badnaatay qofka markuu wax ka helayo mesela waxa laga yaabaa qofka wala soo wada maray maraaxil diraasii wax la yiraahdo la soo maray yani faaligeedii xilliga waxbarashada kale waxa laga yaabaa qof kugu fasal ahayd ama yani qof dariskaaga ahayd ina ka heshay kahilid yani kahilidaas macnaheedu ma aha maysan ka ahayn ama kaama aha يعني إن في المستقبل إن قف كان يعني أسرة سميسين معها لكن كهيلد كان صحواي كهيلد يعني أقول لك ما سن المراهقة يعني وحد دريمة قف ما أنا قبلها أتى ما ويل هذا يعني إن وحد سود يعني والله شيء أم والله هلا مرة جت النماء إسكبار أما نعجن إسكبار هنا قبل إسلام يعني فترة كهيلتان كذا وهواي فترة أدوري بدن قفك مسكحيا أما عقليا أما يعني خبريا ما هو بابا عليك كرو وحيابه هو وجهه ما أوجا بس هو أوجي هاي أكو جرا إن يعني أوجي قف كان كهلد وحلا يراد أوجره سأهو يعني سعر طبعا هو عاد سوجيد الشيء قف كان واحد يكون سوجيدته أما في سكالها عطو أما يعني وحوله ما هذا الكقاب كون أما هو حابس كجرا بقى يعني قلبيا وح إسكا قف كان وكه شيء أما أصاق جاجو كله نين هبل وكله قف هبل ولا صعدا أما هبلايو قف كله لا صعدا هذيك أنا لازم وإنا يلتها يعني قف يلتها مركا إنه إسكير هذا قف هبل عن كهلي ما دام يعني مركا أساسه حلقة بقى إنه كو بيس جرايو يعني فترة داس مراهقة ده هذا ودي بدن تعرف كهلتان كذا أنا وحواي واحد يعني هذا أنا أنت تركيز عن صارين ما بقى هبا waxa anaga muhiimada aan saarayna waxay tahay fadrada ka helitaanka ah waxa qofka yani markuu soo diyaar garoobo xaaladda uu gaaro rushdiga yani uu diyaar garoobo yani min naaxiya maadiya markii loo fiiriyo yani dhaqaalihiisa markii loo fiiriyo inuu diyaar yahay yani inuu takwiin usra yani xiriir u baahdo oo qoto dheer oo xiriirkaasuna asaas u yahay base u yahay si uu ku sameyn lahaa qoys maadaama qoys yani asaga fikradiisa ay tahay barnaamijkaasna wuxuu ka bilaabaa marka marxaladda kahelidaankiisa waxa waaye waxa laga yaabaa muwaasafaad yani inay niyadiisa ay ku jirto muwaasafaadkaas waxaa ka mid ah yani inuu rabo yani qof waliba anaga waxaana bulsho islaami ah bulsho muslimaana bulsho muslim qofta mutadayinada yani xijaabkeeda كيفية اللبس كذا سيد وياه يعني سي مركي يعني بالشدة كل حاجة جرته قفع يعني كتحي يعني واحد بدن أصلا فيرين عيو يعني كهيلتان كذا وحاسة معي أصبعه بدن أو حكيني كرو إني يعني قف كان أو كحله إني عجبيسه يعني مظهر كذا جود مقال كذا جود إنه عجبيه waxaa laga yaabaa inuu cajabiyo qaab socodkeeda waxaa laga yaabaa inuu cajabiyo qaab hadalkeeda waxaa laga yaabaa qof active inay tahay ku fasaleed ama ku lood ahayd ama xilligii oo aqoon jiray waxa isla baran jiray waxbarasho qof active ahayd yani naajaxad ay ku ahayd dhankeeda daraasada ay ku ahayd ama ay ka soo jeedo usra ama qoys yani aad u fiican oo yani qoysaska la dhigi karo sheeg waa dad fiican inay ka soo jeedo taas waxa keenaya marka in qofka fadra uu soo maro فضل اللي يراد كهلت إعجاب كواحد اللي يراده قف كهوا كهلي مثلا قف صاحب كهوا كلا يعني إنه كوي ما ذوك يراد إنك والله إني هبلاي منطقة هاي هبلاي وقرنا لكن
niyo somehow waan ka helay qoftaas yani si ii cajabisay si ii soo jiidatay inuu ku yiraahdo isla markiina ayaa qofka waxa waaye inaad tiraahdo ada laga yaaba wallahi macquul yani bixinada dhalinyarada isticmaalaa qofkaas jinniye leedahay soo jiidasho leedahay يعني horta waa ka helid inuu jiro yani adoo goldhig u ah barnaamijkaaga u ah yani aragtidaadana ku salaysan tahay base u ah usra inaad samaysid qoys inuu dhisto wuxuu maraa qofka wax loo yaqaano ka helid waa inaa maro waa qasab wax aad ka helin lagama yaabo horta inaa yani aad gashid okay marxaladaas ka helida markaad joogtid naaleeyo qofka maxaa ka muuqanaya calaamadaha iyo waxyaabaha lagu garan karo ama kusoo kordhaya noloshiisa maxaa kamid ah waxaa kusoo kordhaya su-aashaas waa su-aal aada muhiim u ah ka helidda qofka waxyaabaha kusoo kordhaya marxaladaas marka uu marayo waxaa kamid ah inuu ka fiiriyo yani sida hore uga dhawaajiyaba aan u calaamadeeyey yani qofka yani bulshada dhexdeeda ama qoyskeeda sida ay ka tahay qaab ahaan sida ay ka tahay dadka ayadoo la wada dhashay oo hal qoys laga soo wada jeed aan isku mid lahayn waa la kala jantalsan yahay waa la kala activesan yahay waa la kala jecel yahay waxaa maqle qoys dhan oo 7 gabdhood ama 5 gabdhood kamid ah ama wiilashii yani dhowr wiil ay yihiin loo jaleecay hebel wallahi waxa cidaas hebel ugu jiro wiilka gabadha sidoo kale wallahi gabadhaas ma sha Allah gabadha cid ugu jirto qofkaas oo kala ah yani la leeyahay yani hadalla inay ku soo gaaraan yani qofkaas saameyn kugu yeesha koob yani sidaas oo kale inaa uga heshid aan usoo laabano mawduuca qofka marka uu rabo u go'aansado in uu sameeyo cilaaqa qabla ziwaaj oo mawduuceena horta barnaamijkeena uu ku salaysan yahay waxaa u badan dadka ay sameeyaan dhalinyarada waxa la yiraahdo horta marka hore waa inay ka dhex dhacaa labada qof waxa la yiraahdo tacaaruf horta waa inuu jiro dhaca yani waxa saldhigga koowaad ah ilaa laba qof ay is aqoonin yani waxba meel ma wada dhigi karaan ka helidna ma imaan kartaba qofka waxay marayaan marxalad leeyahay marxalad isbarasho ah waa la isbartay markii la isbarto مثلا qof hebel halkaas yani fulana meel hebel yani marad waxa la isweydiiyaa nasabka oo kale nasabkayga ama qabiiladeeda waa halkaas oo kale ka soo jeeda العموم markii saas la isku barto fadradan oo ayadana laftirkeeda ay kamid tahay fadrada ijaabka ah waa la sii sheekeysana waa la sii wadaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah inta lagu guda jiro ka helida labada qof markay isbartaan oo gabadhii uu yiraahdo walaalay aniga waan ka helay waa kida yani qaabkaaga hadalkaaga positionka qoyskaaga positionka aqoontaada qaabkaaga waa yani qof ajabiya tahay waxaan u baahanahay in yani nolol aan kula wadaago aan qoys wada dhisano halkaas marka yani waxa laga yaabaa gabadha يعني بداية قبلها وعلى هذا ويك هذا إسكاجا دي بديهين عروينوي بدنا إسكاجا جرا يعني أيضا الدنيا هاي الله بكلهم هنا يعني والله هبل كان كل ديل اكسبت اعتراض good يعني أيضا أهلم بقى رند عاد إسكاجا والله إني واجه الشيء واجه هلي كرتاج ور سوماليا أنا هاي ويل سوماليا أنا تهاي وإسكاجا كرنا سودو وينا يعني فرس كاجا يوجابين مرات waxaa laga yaabaa in lagu daba daro la yiraahdo yani dad waxa yani asaagaaga meesha waa la wada socdaa dhankaaga ka gal dhankaaga ka tartan lagu yiraahdo ninkii reerku ha faraskaaga iyo gaabin in lagu yiraahdo yani waxyaaba xisbu ka ahaado kala qofka marka ay leedahay yani waxa waaye soo jiis qaab hadalka yani la iskaga qoslisiinayo kale in hadalladaas oo kale ay dhax maraan فطبعا intaas kadib waxa laga yaabaa marka labada qof marka intaas isweedaarsadaan la kala qaato yani canaawinta la kala qaato arqaamta la kala qaato wixii lagu xiriiro social media oo kale lagu xiriiro hawshi yani xiriirkii marxaladii ka helida waa la soo sheegtay loo soo gudbo yani xiriir caadi ah direct mubashara oo la wada hadlayo wadaalkaas waxa ka ratimi kara طبعا iminka waxa marayna marxaladda labaad oo fahmay marxaladda keelitaanka ka soo gudubna may marxaladii keelitaanka wali ku jirnaa marxaladda keelitaanka waxay leedahay cawaamil far mustashariin wax la yiraahdo jiro yani xaaladda markii yani keelida ay jirto gabadha ama wiilka oo kale sida mar hadayba aan ka dhawaajiyo ahayd qofka saaxiibka ah yani asoo xumaan ay ka wanaag ay ka tahay oo wuxuu sameeynaa inuu kaala tashto
يعني قف هبل لا تلياشي سو لا يعني مستشار قف لا تلي يعني تلا wadaag inuu sameeyo qof asaga u dhow sida oo kala gabadhana ay sameeyso qof ayada u dhow yani la tali ahaan inay u sameeyso taadaniyo hebel ma ka sayaha hebel waan garanayaa yani wuxuu isoo bandhigay inuu rabo yani ina hore u wada socono maxaa say u aragtaa igala tala bixi si fiican waxaa laga yaabaa the same way wiilka qof yani asna asxaabtiisa aad u dhow inuu asna kala tashto barnaamijkaas oo yiraahdo mawduucaasni oo qof hiblaya rabaa waana kala tashtay waana yani la hadlay oo hadalkayga waa dhiibtay bal ka waran yani fadradaas oo yani pointigaas markii la marayo waxaa dhacda marka وتاي وما سنتها عبد الرحيم وحنا سو غاري خليغي فاصل كلا سو غاري او يرنسننا وان اسكو سو لابننا مeel xasaasi oo aad wanaagsan inoo maraysa daawadayaal barnaamijkeeni arrimaha bulshada inuu ku guda jirnaa oo si toos ugu daawanaysan New Africa TV Soomaali qodobka inuu ka hadlana caawa hada marka la xasuusiyo waxa weeyaan xiriirka ka horeeya guurka iyo macluumaad ku saabsan waan isku soo laabanayna goor insha Allah qadar xayisiin kadib telefishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshaweynta Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida Sawaaxiliga, Hawsaha, Ahmariga iyo afka Soomaaliga fariintiisuna waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa Khartoum, Suudaan higsigeenu waa barwaaqada Afrika iyo horumarkeeda nabad mar kale daawadayaal barnaamijkii arrimaha bulshada inuu weli ku guda jirnaa oo aad ka daawanaysan New Africa TV Soomaali barnaamijka cida aan jaanis u helin in ay si live ah ama toos uga daawato New Africa shaashada waxa ay dib kaga heli doontaa biidnillaah kareem Twitter-ka xisaabta inuu ku leenahay New Africa TV Soomaali sidoo kale Facebook-ga oo u qoran sidaas oo kale New Africa TV Soomaali iyo sidoo kale YouTube-ka iyo meelaha kale ee bulshada isticmaasho WhatsApp-ka ay kamid tahay ee baraha bulshada isticmaasha internet-ka marka la joogo barnaamijka aynu si amba qaadana Cabdiraxiin waxaynu ku guda jirnay mowduuci xasaasiga ahaa mixwarkiisa koowaad ama qaybtiisii koowaad ee ahayd waqtiga ka helitaanka qofka oo ka helo qofka kale haddaba waxaan rabaa halkaas inaan su'aal ka weydiiyo marka la joogo fatrada hadda imika aan sheegnay ka helitaanka sida qaalibka ama muuqata wiilka ayaa wuxuu ka helayaa gabadha kadibna wuxuu u bandhigayaa inuu ka helay uu doonayo in xiriir uu la sameeyo okay taas mid lamida ma dhacdaa in gabadha wiilka ay ka hesho kadibna ay u soo bandhigto inay ka heshay si xiriir ay u wada sameeyaan oo xaggaas cadaalad ma ka jirta labada dhinacba ay isweydaarsadaan cabdikaamil horta aad u mahadsan tahay su-aashan waa su-aal aad ayada laftirkeeda yani in loo turxaan bixiyo u baahan dhanka horta sida mostaliga inta badan sida badan waxaa
يعني dalabka uu ka imaadaa fadrada ka helitaanka wiilasha dhanka wiilasha u badan maadaama ay ayaga yani ay yihiin ama loo arko raa'idka qoyska yani qiyaadiga qofka hogaamiyaha dhabta ah yani qoyska ah sida ayada yani suuratan nisaa ku jirta ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa yani qofka maadaama yani ragga markasta waxay yihiin yani ku badan ama jur'ada yani hadalka oo dhankooda ka imaada laakiin naadiran marmar way dhacdaa gabdhaha laftirkooda yani inta wiil ay ka hesho ay tiraado aniga waan ka helay way dhacdaa yani laakiin ma badna aad uma badna waa wax aad yar okay marka dhanka laga eego waxa mudaa in isla ekeen dhanka dalabka marka la labada dhinac ka imaanayo haddaba gabadha noocaasi ay sheegtay naadirka ku ah hablaha maxaa laga aaminsan yahay wiilka markay ka hesho u soo bandhigto inay ka hesho xiriirka doonayso wallahi diin su'aasha qaybtan hadda ah yani aaminitaanka horta bulshada anaga Soomaaliyeed bulshada aan ku dhex jirno yani markii loo fiiriyo bulshada qaab fikrad ahaan markii loo fiiriyo yani waxa u malaysaa dad aad yani afkaartooda dhalinyarada bidaad dad qofka markuu muthaqaf oo san ahayn yani dhalinyarada inta muthaqafiinta inta juhalada ay badan yihiin si fiican gabar maanta haday ay ku tiraado niyahu waan ka helay ku timaado ay ku tiraado waan ka helay almost waxyaabaha ugu adag qofka maskaxdiisa ku soo dadagaya dhalinyarada waxa kamid ah ya qoftan waa amay ku dage ama yani wax ku gaadaysa waxba yani waxa u soo horbaxaya yani waxa ku soo dadagaya qalbigiisa waxa ama niyadiisa haw yani qofkan sama waxba jiro qof caafimaad qabto ma ahan keef ay ku soo waxa ay kugu soo bandhigay ka yani taasna waxa sabab anaga bulshadeena dhaqanka Soomaaliyeed markii loo fiiriyo dad gabdha aad u yani khajooleyna aad u xishood badan waaye yani inta badan aan laga filaninba in yani ay ku dhiiradaan ama ay dalbadaan nin waa ku baahana waan ka helay saa si lamida marka gabadhii tiraado wiil ama u bandhigato waan ku rabaa oo ku baahanahay laga yaabo marka inuu u arkaba maskaxdiisa wax ugu horeeyo ku soo daadagaba wanaag kuma soo daadagaye inuu qofkaan ama yani wax ay ku hoosgelin ay ku hoosaadin inay yani siraado uu ku fakaro dad kalena way iska jiraan oo yani tafaa'ul khayr ahna ayagana oo yani fikradooda maskaxdooda nadiif ay tahay soo dhaweynaya gabadhii yani la qaabeynaya la habeynaya barnaamijkii soo dhaweynayo kadibna ilaa intay meel iskala gaaraanna yani barnaamijkii la wado waa gartay fatrada ka helitaanka dabcan saa ka dhawaajisay waa fatro Google xaar u ah ama waa fatrada ugu horeysa ee qofka marka uu rabo inuu sameeyo mustaqbal iyo guur iyo nolol dambe haddaba fatradaasi waqti ay ku eg tahay ma jira oo ay ka gudbayso fatrada ka helitaanka ah fadradii koobaad ilaa hadda aan wadna ah waxa waaye waa kugu soo laabanaa qadka telefoonka aan soo wacaya halo salaamu calaykum السلام ورحمة الله وبركاته عبد كامل والسلام يا أزيك أستاذ عبد الرحيم مالي وكرني في برنامج كنا إن مدة هذا السعودي مركا أدبا إذن سلام يا مركا وحن على سنين إذا كلام قلم وتهاي سودو برنامج كده طبعا وفاهسن تهاي وأنا لا سعتي لا تهاي موضوع إنه كان لنا عوا هذه رونهاتي وموضوع لو باهي هي أساس كأم قابضك اللي دورنا يهتري لبسوا سي وجرجا النقطة جري مركز تياله مركز أستاذ خير الله في أد وففاهي رونهاتي نقلنت الصوماليات وإن أرنكا أي في صحة وجادان أو أي مقارنة كقب قاتان قابضك أي لو دورنا يه marka laba su'aal baan marka ayaan weydiin lahaa ustaadka haday macquul tahay waa tahay waa soo dhawaanaysaa labada su'aal soo deynaysaa insha Allah waxaan rajeynayaa inuu ustaad kaaga jawaabi doono hambaliyada iyo mahadcelintana waa ka gudoonay waa maasan tahay soo dhawo su'aalaha soo daa mudan waxa horta sideedaba waxaa jirta su'aal in badan oo dhalina ay aad iyo aad ma garanaysaa ay isu weydiiyaan ama ku noqotay ay u laayihiin ilaa hadda xal marka jacaylka ama rabitaanka miyaa ka horeeya mise wuxuu imaanayaa jacaylku guurka ka hor mise
labadan qof isdooranaya markay ay isguursadaan ayuu jacaylku imaanayaa marka keebaa soo horeeyo taa waa su-aasha koobaad. okay su-aasha labaad waxa weeyaan muhiimad miyaa qofku in uu ma garanaysaay ku doorto qofka maaragtay inuu isagu doorto maadaama lagu jira hadda qarniga 21aad qofku in uu markaa isagu doorto miyaa fiican mise in ay u dooraan waalidkooda oo sidii hore oo duca iyo habaar kala qaada la dhihi jiray mise qofka in asaga la siiyo ayaa fiican uu gacantiisa ku doorto. si fiican waa fahmay. haye su-aasha saddexaad. marka labadaas su-aal weeyaan hadda su-aalaha aan qabo marka aadna ma garanaysaay waan u salaamaya idin salaamaya adinka iyo tiimka iyo barnaamijka quruxda badan oo aad maaragtay aad caawa ummadda la wadaagisaan. waa tahay sidoo kale aad iyo aad ku salaameynaa waa mahadsan tahay. kaas wuxuu ahaa maxamed oo naga soo wacay dalka suudaan meel ka mid ah. maxamed waa kaaga mahad celinaynaa la soo xiriirka barnaamijka. thank you. barnaamijkan ayaynu sii gudagalaynaa. laba su-aal ayuuna weydiiyey daawadahaasna la soo xiriiray. labadii su-aal inta aan gudagelin su-aashii hore inoo dhamaystir ku saabsaneyd cilaaqadan barnaamijkan ka helitaanka waqti uu ku egyahay miyaa jiro? horta wax waliba waa fatrada maraaxisha uu marayo waxay leedahay bidaaya waqti ay ku eg tahayna way jiraan. waqtiga ay ku eg tahay waxa waaye marxalada ka helitaanka ah labada qofood qofka markuu u gudbiyo maalmaha ugu horeysa ama timeka ugu horeeyo yani qiimeyn guud marka uu ka wada ijaabkeedu qofka uu ka helo qaabka sida aan sheegnay waxyaabaha ikhtiyaaraadka uu ku dooranayo ee kamid tahay qiimeynta koobaad uu saaro yani oo u gudbiyo oo yirahdo waan kaa helay waa yani ama igu aqbal ama igu yeel. qofka markay ka aqbasho almost يعني فترة كهريتانك هورتا halkaasay ku eg tahay waxaa loo gudbaa fatro la yiraahdo marka fatro ama marxalo la yiraahdo marxalada taqabul yani كهريتانكاagi sida aan ba iga hesho kala anoo kaaga helo waan ka aqbalay way xirantay marxaladaas way xirantay marxalad cusub face cusub loo gudbaa. okay face ka cusub intaan galin su'aalihii walaalkeen maxamed oo nala soo xiriir ayuu galina waxa uu leeyahay maxamed guurka iyo jacaylka keebaa horeeya? مسألة waxa waaye dadka ayada laftirkeeda u baahan yani baxthi dheer ama yani research dheer in laga sameeyo u baahan. guurka hortiis jacayl ma jira mase bacda الزواج imaada موصل dadka yani barnaamijkaas ka hadla ama falanqeeya ama ha ahaadaan culumaha ahaadaan ama dadka yani ku xilka dheer khubarada ku ah barnaamijkeedan yani cilaaqaadka ku saabsan ragga iyo dumarka ka dhaxdhaca yani xub uu jira uu dhaca qabla الزواج uu dhaca bacda الزواج uu dhaca uu imaada labada dhinac buu qaadan karaa laanu dareen yani xub sidiisa jacaylku waa dareen dareenka qofkan aa u qaaday dareenka qofkan aa u qaadana ma aha micnihiisu xumaan uma aad qaadin dareenka aa u qaadayso waa dareen yani wanaag ah yani qofkan inaad nolosha la wadaagtid yani aa u dareentid yani qofkii aa ku degi lahayd xasilooni aa ka heli lahayd kalgacayl aa ka heli lahayd yani kaaga duwan inta yani caalamka qof ku nool qof aa ka dhaweysanaysid uu yahay aa u aragtay qalbigaaga aa u furaysid yani aa siinaysid keer gareen badan ihtimaam badan aa siinaysid aada u haynin dadka kale يعني معناتها حبك جعلك يعني معنيهيسو انت السيركل ما كبخايو انت هسنا يعني قفك النولش هذا ربت انا على وداكتين اكه الشيء يعني قبل الزواج يعني جور كهر ما ايمان كرو كهيلد يعني قف هذا كهيلين ما جور سكرت كهيلتان لفتر كيسا وحا يعني اعجاب كاسا وحو السبب يعني مواصفاتك عاديه قفك ربت انه كو دشو dareen jacayl inuu kugu dhasho dareenkaasa yani aan u kala qaybinay oo ah yani qofka ina keer garan sii kartid qofka inuu dadka kale kaaga duwan yahay kaaga sokeeyo yani waxyaabo badan oo dadka kale aadan u arkin ina u aragtid asaga yani waxa siinaysaa yani keer garan gooni ah ihtimaam gooni ah ina siisid yani macnaha xubbiga yani jacaylka sidaas u yahay بعد الزواج التزامات واجب مع حب يعني inuu wada dhaco wadahay su'aashiisa labaad waxay ahayd waxa uu leeyahay maxamed in waalidka ay u guuriyaan qofka iyo in asiga
uu guursado oo dooqiisa ka ciyaaro oo sidaa sheegtay jaceylkii guurka ka horeeya uu soo maro keebaa wanaagsan horta masaladaas yani xaaliyan markii loo fiiriyo su-aasha maxamed horta waa umahad celina laba su-aal markii hore aan umahad celin haddaan su-aashiisa labaad hadda aan uga jawaabo sida yani mujtamac hadda annaga bulshada aan ku dhex noolnahay horta waxa la yidhaahdo ikhtiyaar zawj ikhtiyaar waalidka yani in uu ama gabadhiisa ama wiilkiisa uu yiraahdo gabar hebel ama wiilka gabadha nin hebel aniga ku siiyo aan kugu ikhtiyaariyey horta laguma badna hadda yani xaaliyan hadda sida yaa fiican markii loo fiiriyo yani casrigan hadda aan ku noolnahay mise casriga hore kan hadda aan ku noolnahay waxaa fiican qofka labada qof ayaga inta is soo fahmaan waalidka loo yimaado loo tago ay markaas waalidka u duceeyaan oo iskugu mahad celiyaan yani markaasna barnaamijka guurka ahaa ay imaadeen maadaama labadooda iska soo heleen is soo fahmeen ay wada imaadeen oo guur ay rabaanna sidii loo siiyo waayo idaa jaakum man tarduuna khuluquhu wa diinahu fazawijuuh wa ilaa takun fi al-ardi fasaadun kabiir xadiiskii ahaa yani haddii wiilka iyo gabadhi ayagoo is soo doortay ay u imaadaan yani waalidka ay u imaadaan ay yidhahdaan waa israbnaa waa in la siiya ikhtiyaarkooda qofka waa in yani loo ogolaadaa haddii loo diido marka yani ama nin hebel waaye ama ree hebel isma galna ama yani waxyaabaha siyaadada oo la imaado qofkaas ama waalidkaas wuxuu khilaafay ama uu kasoo horjeestay xadiiska rasuulka alayhi salaatu wasalaam yani idaa jaakum man tarduuna diinahu wa khuluquhu fazawijuuh wa ilaa takun fi al-ardi fasaadun kabiir yani qofka waa in laga fiiriyaa ninka nin ahludiin ma yahay khuluq dabeecadiisa say tahay يعني رالها يعني قف مسلم الإسلام ما يهي دين تيسي خلق يس دبي عديس أوكي ما يهي نفقة قف كان ما لبحي كرا ما يهي ما أول قبل ما جوسن كراها خلاص أنت صديق أو يعني شروطه وسوي بيحيو وإن لا سيا إنه دي ذا معهم. إن سؤال زمركا أنا باختصار وحن وكسر قابل لها إن يعني لو دايو gabadhaha iyo wiilasha dooqooda inay ka ciyaaraan ayaga loo daayo aan la fargelin sida waatay aad ma santahay waxaanu galeynaa fatradii markii ay soo dhamaatay ijaabka ahaa ama ka helitaanka ahaa waxaa loo gudbay fatro kale oo ku xigta maxay tahay fatradaas xaggeesa ka bilaabataa fatrada isha ijaabka ah ka helida markii yani halkaas aan ku soo koobnay fatrada kale taqabulka ah وتوس وحي يعني سلك كويسة حرير إسلام مركي بالعبانيسا مركي لقى جود بوك يليدا لسه شايقو إن لبضة قفاض لبضة ديناعو يعني قيس وضع أبورتان ربا إن كهيليدي مركي لو شاي وضع إسلام وضع قرتان إسلام وضع أفقرتين أو إكسبت الإسواد السيو وقال هرت وحابد على تقبل كمعنى تقبل كأوحية وايس أقبلني فدرس مركي وحاب بالعبانيسو لو جود بقى يعني waxaa ka ratib maayo halkaas waxaa la isku furaa horta waxa la yiraahdo qalbiyada markii hore keelida qalbi ma furneen fiican markaas waxaa furmaayo qalbiyada isu furmaayo waxaa dhacayo markaas waxaa loo yaqaan cawaatif inay imaato meeshii keer gareen inay jirto ay imaato la iskeer gareeyo laga hadlo yani maxaa inoo dan ah يعني قفك أسرارته لبضة قف إن إسلام وذا وذاقان يعني واحد مركب هرك يليد فترة أنت إجرتها على سو شيء كرين ما دام ليس أقبلي سمبدأ على سو أقبلي يا ما ناس مركب إني يعني الأسكفر النيدي الأسكفره صراحة الأسكفر واضح هذا ثقة كلسوني على ناس مركب أبو رميسو حلو جود بقى فترة ليلة فترة تقبل فترة عواطف شوف يعني عاطفة عواطف كنفتر كذا عربي هذا نوجه العزيز يعني عواطف طبعا الأولى جيدة يعني على صوم عليها عواطف طبعا يعني قفك درين يعني درين إنه إماضة فترة لو جود بالدرين قلبي مركي الأسكفر لأنه قف هذا أسكو آمنين مركو هربا قلبي قفك كلا مثلا ولا درين حنون كيس ولا درين مروكته ولا درين مروك وحيابا درين ولا قيب سنة يعني قلوبته لمدة قلوبته إلا صفره قلب قف كان يعني إنا ضدك أسقولا مدهين يعني أنا أقدر أنت كجسم واحد يعني قف كان إنه كويس فترة تقبلك أنا جنو حق لنا إمك فترة دي نسينا إن شاء الله تعالى برنامج كان نقول لكم جرنا داوديال نيو أفريكا تي في أياد نقول ساعتان برنامج كان مه برشة قرر وينو سكون سننا أو سوبيا عبنا وينو لمسترنا حلقة من الحساسة إنه مرسا إن الله سعد
telefishinka new africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshaweynta Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida sawaaxiliga hawsaha ahmaariga iyo afka Soomaaliga fariintiisuna waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa Khartoum Suudaan higsigeenu waa barwaaqada Afrika iyo horumarkeeda waa tahay daawadayaal waxaa la soo gaaray qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijkeena arrimaha bulshada oo aad ka daawanaysaan New Africa TV Soomaali Cabdiraxiin Faarax Naale oo dadka qaarkoodna ay shooli ugu yeeraan ayaa barnaamijka igu martay ahaa oo aynu wada falanqeynayna qodobka ku saabsan xiriirka ka horeeya guurka oo ay dhalinyarada sameeyaan marka ay u holadaan in ay mustaqbal iyo guur ay sameeyaan waa tahay Cabdiraxiin oo barnaamijkeena kusii guda jirnaa marxaladii labaad adigoo inoo bilaabo faafinteeda ay inoo joogtay marxaladda labaad waxyaabaha lagu garto dawaahirta ka muuqata iyada naftarkeeda ma sii kala qaybsantaa marxaladdaas faahfaahin dheeriya bal naga sii marxaladdaas waa marxaladda aadka u xasaaska ah marxaladda yani qalbiyada la isku furay quluubta la isku wada furay waa marxalad yani aad very sensitive u ah yani waxaa waaye marxaladda ay samaysmayso kalsooni inay jirto waa marxaladda ay imaanayso is-aaminad badan inay jirto waa marxaladda la soo gudbinayo asraar yani qofkan yani waxyaabaha uu jecel yahay waxyaabaha uu rabin yani fadrada yani takaaf labada qof yani insijaam ma samayn karaan laba qof oo yani isku afkaara ma yihiin laba qof oo yani isfahmi kara ma yihiin yani si mujmala cumuumka ahaan sida guud ahaan yani laba qof oo isfahmi karo inay tihiin yani fahamka fadradaas u bilaabana sababta waa la is-aara weydiina yani maxaa u aragtaa yani guurka waxa su-aalo badan waxaa imaanaa psychology ahaan qofka yani waxyaabaha uu neceb yahay waxyaabaha uu jecel yahay uu yani kayfiyadda dhaqankaaga yani labada qof yani qofba dhaqan uu leeyahay markaas wuxuu u kuurgalaa qofka kale markii yani taqabulka oo imaado hore ma loo sii socon karaa waa fadradii hore way kasii xasaasantahay way ka dhib badan tahay yani fadrada kaloo imaan doonto saddexaad yani waxa aasaas u ah tan haddaan la helin labada qof ay is fahmin kalsooni badan is abuurin yani waxay noqonaysaa inaan hore loo soconin ijaabkiina ka kac u noqdo ka helidiina ka kac ay noqoto marka si ka helidiina ka kacaysa u noqonin marxaladda kale imaan doonto diyaar garowga guurkana yani ayadana sidii la rabay u dhacdo waxaa la rabaa yani in lagu dhaqmo kalsooni run yani qofkan waxyaabaha aad ku sugantahay waxa aad tahay waxa uu yahay yani inay isweydaarsataan hal beena qofka kale hadduu u sheego shaki hadduu meeshaas u imaado waxay noqonaysaa yani in misdaaqiyadii iyo xiriirkii hore socodkii inuu yaraado oo mararka qaar laga yaabo xataa in waxyaabo xaqiiqi ah qofkan kale uu rumaysan waayo maadaama been looga bartay soomaalida tiraahdaa runtaada hor beentaada hor runtaada dambe u baasbaxda soomaalida tiraahdo marka hal weliba tan waa kasii wax marka ay tahay yani ay ku saabsan tahay sheeko markay iskaga saabsan tahay beenta wax iska caadiga ah marka ay ku saabsan tahay qalbi way kala adagtahay way kala dhib badan tahay laanno qalbi dhan bini aadan yani qof adiga ku aaminay nafsadiisii inuu kugu aamin rabo maalkiisa sharafkiisii inuu kugu aamin rabo haddaa beenaa u sheegtid waxa waaye very hard qofka dhaawaca u geysan waa dhaawac dhalinyarada haasawaha wadaaga tusaale ahaan waxyaabaha aadka u isticmaalaan waxaa kamid ah qofka in uu abuuro kalsooni way adag tahay laakiin in kalsoonidii uu burburiyo fududahay oo hal mar waxaa laga yaabaa hal faawal ama hal qalad oo gale in kalsoonidii uu burto haddee burburtana dib uma soo laabanayso arrimahaasi ka waran iyadana qofkan asigoo damacsan in xiriirkii uu wanaajiyo mandar ama muuqaal wanaagsanna qofka uu ka dhaadhiciyo haddii gaf noocaas oo kale oo ka dhaco inta marxaladda labaad lagu guda jiro saameynta ku yeelan karta marxaladdaas intee la egtee horta
midda ah si kalsooni lagu abuuro way adag tahay laakiin si lagu burburi way sahlan tahay waxay soo xasuusisay yani waagii dugsiga sare waa run horta qaacidadaas qaacido waxa waaye xiriirada yani dhalinyarada Soomaalida hadda xiriirada jiro yani lagu bees garayo qawaacid kamid ah waaye waa run horta sida lagu dhisaa way adag tahay waayo sida lagu dhisaa way adag tahay marka aan usoo qaadanayno waxa soo sameysay waxa usoo kuur gashay waqtiga aad ku soo bixisay xaafadaha usoo wareegtay dad badan usoo wareysatay qofkii xataa yani asoo kula fadhiya wax badan ka fiirisay dhinacyo badan ka ilaasay u kuur gashay si kalsooni qofkan qalbigaaga nafsadaada waxa ka dhaadhicinay qofka inuu qof wanaagsan qof fiican u yahay waa ka dhaadhicinay inta ka dhaadhicinaysa nafsadaada qaadana time u baahantaa waa ka dhaadhicisay wixii waa caamil xisi waa yani waxa yani ma aha muuqda ma waxa muuqanin iska dhaadhicinay way adag tahay kalsooni wax la taaban kara ma kalsoonida waa waxyaabo isu tatagay oo dareemo isu tatagay aad iska dhaadhicisay ama qofka ka aragtay yani waa aad u adag tahay laakiin inaad burburisid waxaa ku burburin kartaa waxyaaba ugu yar ku burburin kartaa absad xaaja ku burburin kartaa wax taafih ku burburin kartaa inna caadi hal beeno ay u sheegto qofkii adoo ballan leh oo soo waco aad meel hebel aan rabaa inaan caaw ama yani barnaamij hebel aan ka rabaa ii sameey qofka uu kiraado okay waa ku sameeyna uu ku sameey waayo ama telefoonkiyo kale yani ugu gashaa soo qof kale waiting call ku jiro waitingkii lagaaga soo bixi waayo yani waxyaabo badan waxaa jiro بس إذا كرسوني بربورنا كرسوني يعني قفك أكو قبتي يعني مقامك بوزيشنك أجرسي سي إن يعني قفكي وكاغسو موقن واي ماشي داس waa marka waxay noqonaysaa qaacidada kalsooni sida lagu dhisaa way adag tahay sida lagu burburiyaana way sahlan tahay yani saasa keeni karta kalsoonida yani shay qaali ah waaye waxaana kaaba u ah oo quudiye u ah runta ana runta hadii sawirka qaraarta waa in la soo sheegaa runta lagama maarmaan ayada ah haba iska xanuun badnaato runta waa in la soo sheegaa yani xiriirka waa inuu ku dhisan yahay xiriir run inuu ku dhisan yahay oo ku saleysnayn been in laga ilaaliyo yani waxyaabaha fududaysiga ah yani qofkan waa qofka nolosha aan la wadaagi lahayd it's not easy waxa laga yaabaa noloshiina hadduu ilaahay ugu talagalo inaad isla wada noolaataan 40 50 year 60 year inaad isla noolaataan laga yaabaa isla qaadataan yani waxa aad u fudud maaha wax sahlan maaha yani saacad habeen maalin galab bari saada masaakuun bil usbuuc sanado waay okay yani wax sahlan maaha marka waxa kala rabaa inaan ku weydiiyo isla fatradaas inta ku guda jirno dabcan Soomaalidu waa dad aad u isticmaala suugaanta marka suugaan aan dhahayo waxa rabaa inaan ka abaaro suugaanta dhanka mahmaahayada ama hadallada xikmadaha ah dadka hore laga soo minguuriyo waxay dhahaan gabadh kun ay la sheekaysataa ama kun ay koodisaa kow ayna kala baxdaa ilaan dumarka diinteena soo banaaba hal nin inay guursato u baneysay saas daraadeed hal nin bay kala baxaysaa marka ugu dambeyso tii qaacidada iyada ahayd raggina way la isticmaalaan dumarka banaankeeba soo dhigteen raggina way la isticmaalaan marka mawduucaas asiga ah xiriirka labada qof saameynta ku yeelan karo iidan bal wax nooga sheeg abdikaamil waxa waaye su'aashaas dumarka kun iyo kow ay koobiysaa halna waa kala baxdaa horta yani waa sheeko yani si haddii loo fiiriyana dhaqankii soo jireenka Soomaaliyeedna horta aan shaqo ku lahayn marka sheekooyinka lagu hadda jira laga yaabay yani social media asbaabta yani waxyaaba ugu badan yani qof ku nool wadan ama hal area la isku wada nool yahay waxa laga yaabaa kana WhatsApp inay ka shukaansato kana Facebook ay ka shukaansato ama kana caadi live mubashara ay ka shukaansato isku wado laakiin dhaqankii Soomaaliyeed soo jireenka hore horta waxaas ma sii jirin laakiin xaaliyan mawduucaas waa mawduuc jira qaayim waaye weliba gabdhaha maanta wax aad wax looga xumaada ah yani very yani shame ah in yani gabadha Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed asay laftirkiisu ka shaqaleeyay hadii uu rabo inuu guursado ama xiriir inuu sameeyo uu rabo waxa baahidiisa yani way kaafin kartaa gabar way kaafin kartaa
waxyaabaha uga baahan yahay ma yani tan inuu la sheekaysto tanna uu la sheegto tanna uu la sheekaysto waxyaabaha ku kalifayo ma garan karaan yani waxa waaye aan caadada aan dhaqan Soomaali aan u lahayn meel uu naga soo galayna kulay in la baar u baahan aan u imaano waxyaabaha yani la yaabka cajiibka ah oo ka jiro wadankiisa waxa kamid ah ama xataa dadka dibadaha ku nool ah in gabadha ay magacyo u kala baxsadeen ba yani ay ku leeyihiin ninkan waxa la yiraahdaa baby love baby cash baby ايشيك مطعم يا ما كافيتيريا بيبي كار يعني بيبي جزيره بيتش يعني waxa loo kala bixiyay ba waxa laga yaabaa maanta gabadhiina yani gabadh saaxiibteed inay ku aragto wiil maanta ku arkayso qofka iga dabagay yani erayada la isticmaalo markii loo fiiriyo ninkan muxuu ahaa iga dabagay macna kan kii waa boosashii ku jira macna booskeewa waa kan macnaha iga dabagay ninkan qishkiisa isii macnaha waa ninkan waxa yani nooca ayada ay tiraahdo walaa odaga ka soo haya kii dhanka lacagta ahay waaye markii yani waxa loo baahdo ninkii ifuudeeyay lacagta iga furdaaminay waxa laga yaabaa muddo kadib ama 2 maalin ama 3 maalin kadib inay mid kale ku aragtay kana wuxuu ahaa kan baby love waa kii caashiq naga dhaxeeyay kii mustaqbalka hayahay yani waxyaabahaas waxa waaye wax isqaban kara ma gabadhana shakhsiyadeeda uma fiicna umana wanaagsana waxyaabaha aadka u xun yani bulshadeena dhibka yani u keeni kara kamid tahay gabadhu waa inay ahaataa gabadh muxtaramada bint xalaal inay ahaataa yani muxtashamada ay ahaataa halka qof ay markaas ay u aragto ay la wadaagi karto xiriirkeeda guurka ku salaysan waliba xiriirka ay la wadaagayso waa inuu ahaada xiriir ku dhisan ku salaysan guur hadafkiisa yoolkiisa uu yahay يعني جور أو سنين حتى علاقة عابرة يا سنين حرير يعني أو إسكو جود أو سنجرين حرير كأنك على سمين يسد وياه مركب هرا كوسا من جناب إنه هذا هدف كيس إيجار كيس إيدنتيس إنه ياه إنه سمايا أسرة مسلمة كلنا قايا يعني مبادئ ده مبادئ إسلام كوسا لسه سنين تاعي وحي كسوهرا باطل وحيابها كان مركب موضوع أنا اهتمام كوسين يعني أودور أنا وحكم ذا إن كل سؤال إني كوجرتان لنا وحيابها كان فشل علاقاتك جورك كهرية وجوبا المشاكل وجوبا ولا قد حلقة وحكم ذا موضوع هذا عن كهلين شوفي عن almost أديك عبد كامل وحا وبعت يعني أنا قبل جورستيد يعني على سميسيد يعني علاقة على سيد غفتي برتيد كدبنا يعني سي جور ولا جارتيد قف هي ست بيبي لوف بيبي كاش بيبي هبل هي سطح يعني وحوارت مو أجد أديك مو أجد حوارت إن يعني أطها يا كيرتان قاعد يحكي شيء كدبنا وحارت أنا أقول كذي مستقبل قريب وحا أركز أمريكا هذا الذي قفك مركو يعني ما جعل الرجل من قلبين يعني قفك بني آدم كان مسكحه ولا إلى وحوك على سؤال في غضون هذا الكينا يعني شيء كدينا أو حلاقي يا حلا إسكار ضاع يعني إسكار إيمانا إسكار إيمانا إني كنت هذا بلامات كي وحي أبي إني وحي إسكار إيمانا هذا سيريس الديار واه يعني قلنا إني جوستي لكن كوه صودا دور من كله أما يعني علاقات كله إذا كان من كله إلى لا هذا ما أنت أوقاتنا يعني إنه سيدي فشل علاقتنا أو كوي ماتو the same way ويرشي كلا أيضا كواسو كلا لو وذينا يعني سيدي وكلا مركي أيضا علاقات كلا إنه لا يكون قادر سيدي أو قدعان وحيابا أو بدن أو يعني لقوا قادو أما يعني هوبسيت كلا قالوا يعني فشل كأنه وعن كذا ودي كبدن يعني لما أقول الصورة دي هرئية ضدك هرميس أقول إنه حن موبايل كا يعني سمارت فون كا سمارت فون كان قفك على شكيستي وحيابا بدن يعني وحي اللي سويد أرسدي قفك لينا حرير هذا يعني وحيابا لقوا قاعد كم تاعي حرير كيني أسوق قطر ديرسن أو يعني أدو صعدا وحلاقي على إنا كويس شيء أما تليفون كيسي إنه أوقتكتو أما أدي أوقتك تضربت الكاغا قبل لها كلي أنا أدي إنه رجعنا سيدو كلا أيق وضان التليفون كاغا أنت قبضته الله قف كلا يعني لا شيء كثير حرير كلا لا إلا عرفت سيدنا يعني حرير كحماضة وكسو أفجر وتا وكحما هاي سؤال فر بدنا هالكا إيدوبنا أو عربينا كوديو لكن وقتي إنه مسامح هاي وحلا سو قاري برنامج كي حلقي وكو إكا
inta aynu ku saafmeeri doonaa insha allahu tacaala xaraqaad kale iyo kulamo kale ayaynu ku falanqeyn doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya ka qaybgalka iyo waqtiga qaaliga ah oo hortay mujtamaca soomaaliyeed si aad ugu faa'iidaysid ustaad cabdiraxiim waa tahay daawadayaal guud ahaan inta ayaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkani arrimaha bulshada barnaamijkan oo aanu kaga hadlaynay cilaaqada ama xiriirka guurka ka horeeya iyo macluumaad ku saabsan ayaa waxaa igala qayb galay ustaad cabdiraxiim faarax naaleeye oo shooli ku magac dheer oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed wax badan ka faa'iidnay ayaan rajeynayna hadda waqti inoo saamaxo barnaamijyo kale ayaynu ku casuumi doonaa Cabdiraxiin si aynu wax kale oo intaa ka sii balaaran aynu uga faa'iidno guud ahaan waa naga inta barnaamijkeena tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij cinkan oo kale waa Cabdi Kaamil iyo saaxiibkii oo wada jir idin la sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh معتني عبد الرحيم